guud Somaliland ayaa laga soo amray in maxaan ku idhaahdaa la xidho marka ninkii doonaya inuu aniga xidho inamadan yar soo hanjabay ilaa saaka dambi kalaad gashayo amar diidaad samaysay bay yiraahdeen oo aad soo xirin weyday shalay inta xoolaha iga la burburiyay xarig la igu darimaayo calanka Soomaaliyana gurigaygu inuu u dumay Soomaali way ogtahay anna waan ogahay de waxa ka dhigay baaba taas aba dhismayaasha la dumin doono buu yiri waa wixii 2 bilood kadib la dhisay wixii ka horeeyay kuma jiraan maalin kadib halkan baan ku ballamiyay gurigan keenay gurigani wuxuu ku yaalaa galbeedka magaalada Boorama airportkii baa hadda wax yar noo jira airportkan u dhownahay 2 week markaan joogay dalka ayaa horta gurigan lagu qoray dumis jigjiga maalin weekan ka imay baa dumista lagu qoray maalintii dumista lagu qoray waxaan la hadlay ninka maayarka ka ah magaalada Boorama habeenkii markaan garaacay aan ku yiri walaal gurigaygu dumis baa lagu qoray say wuxuu jiraan wuxuu igu yiri gurigaagu 2 bilood haduu ka horeeyay kuma jiro dumista guriyaha la dumin doono dhismayaasha la dumin doono buu yiri waa wixii 2 bilood kadib la dhisay wixii ka horeeyay kuma jiraan maalin kadib halkan baan ku ballamiyay gurigan keenay gurigani wuxuu ka kooban yahay 9 qol wuxuu ku fadhiyaa 30 by 30 jagadan ka dambeysana aniga leh halkan maayarka keenay guriga markuu fiiriyay wuxuu igu yiri wadadu horta gurigaaga ma dhaafayso halkan bay ku istaagtay size-kay gurigayga jagadan ay ku joogsatay wadadu horta ana iska leh maayarku wuxuu igu yiri wixii gurigaaga xagga ka xiga airport-ka iska leh maadaama ay tii noqonayso yaqalkaaga dhaafayna waxaan samayn doonaa intaanay guriga soo galin baan joojinaynaa buu yiri gurigan hortiisa wada weyn baa martay tii anagoo isku og ayaa waxaan arkay inayna sheekadii ay dhowr week qaadatay intida iga gashay horta gurigani maxaan ku radaa $160,000 weeyaan waxa jooga ninkii maxaan ku radaa engineerkii dhisayay baa jooga dhulku ku fadhiyo qiimihiisana dadka Boorama degan way garanayaan waxaan u tagay maayarkan ku noqday xafiiskiisaan ugu tagay xafiiska markaan ugu tagay wuxuu igu yiri waxaan la hadlaynaa ninka hawlaha guud gobolkan u fadhiya xafiiska markaan ka soo baxnay ninka hawlaha guud haystay maxaan ku radaa Saleebaan xafiiskiisaan ugu tagay waxaan ku yiri Saleebaan waxaan kula socdaa gurigaygii baa dumis lagu qoray dawga gurigayga duminayaana mid magaalada maxfi u lana maahin oo wuxuu ka yimid buurahan maxaan ku dhafaarxiyood aqalkayguna ku qaboobaya daw xataa ma aha halbowle ah oo magaalada ka soo baxay ma aha gurigana ma dhaafayo marka waxaan doonayaa wala arinta inaad wax igala qabato gurigii soo eegto Saleebaan wuxuu igu yiri gurigaaga dayrkay kaga dhacday inta yar dambe dayrarkuna dhulkay la mid yihiin oo dhulka iyo dayrarku midna magma ah waxaan ku yiri Saleebaano waxaan ku leeyahay walaal geed meel ka baxay ma aha waa gurigaygii aan dhistay Boorama ku yaalay oo dumis ku qorteen ayaan ka hadlaynaa Saleemaan maalintaasi hadalkaygu meel fiican ma gaadhin waan iskaga imay maayarkan la hadlay maayarku wuxuu ii sheegay inuu samayn doono wax kasta uu gurigayga ku badbaadin doono maadaama ay wadada gurigayga ku dhacday ay guriga dhaafaynin oo guriga ku joogsanayso saas baanu maayarka isku ogeyn kadib waxaan ogaaday inaanu maayarku arintan waxba ka qaban karin waxaanu ii sheegay wasaaradda hawlaha guud inay maxaan ku dhahdaa arintan ay ka mas'uul tahay Saleebaan baan ku laabanay Saleebaan waan soo kaxaynay inaan ka u fadhiyo halkan wasaaradda hawlaha guud gurigan keenay halkan buu noogu yimi wuxuu arkay inaanay wadadani guriga dhaafayn oo guriga ku joogto waxa kale uu og yahay wadadan gurigayga ku dhacday inaanay wada meel u socoto amba magaalo kale u socoto meel oo kala taraafalayo oo cid ba anfacaysa ahayne buurahan maxaan ku radaa faarixood ay ka timid oo dhinacna ay ka timid cid deganeyn dhinacana ay u socotana aqalkayga ay ku dhamaatay Saleebaan waxaan ku yiri walaalow 3 shay mid ii sheeg wadadani maadaama gurigayga ku joogsanaysa intaanay galin inaad joojiso ilaan sayskaygu bay ku istaagaysaa wadadan aqalka hormartay inaad isticmaasho daawal badow baan nolahayn oo gurigu 3 wado lahaa iyo inaad lacagtayda ii celiso guriga sida doonto baad ka yeesho hor dadka waxaan u sheegayaa dad badan baa waxay leeyihiin waxa kugu dhacay sidan daw baa dhacay waxa baa dhacay wax way kugu dhici karaan meesha aad adigu leedahay gadatay anide meesha layma siinine maalkaygan ka bixiyay guriga xoolahaygan ku dhistay dhulkan ana gatay waan cashuuray Soomaaliland $1,200 bay 3 sano ka hor igu cashuurtay dhulkoo kali haatay meel iyagu siiyeen iyo meel waqfi la igu siiyay toona maahay waa maalkayga horta waxaan ka hadlayno wada way kugu dhici kartaa ceel biyo laga helo baa gurigaagu noqon karaa iskuul baa looga baahan karaa dawladda u baahan kartaa public property buu noqon karaa laakiin xeer buu leeyahay oo xoolahaaga hadii loo baahdo waa in lagu qiimeeyo adigana maalkaagii lagu celiyo sababta gurigaagii lagaaga qaadayna lagu sheego sheekadu halka markay inamada noo mareysay waxa la igu yiri nin baa ka imanaya bari wasaaradda hawlaha guud haysta ninkii baan 3 week sugay halkan buu yimid magaciisa ma xasuusto Cabdilaahi maxay baa la yiraahdaa
agaasimaha hawlaha guud ee Soomaaliland weeyaan malaha hal nin baa ka sareeya halkan uu igu yimi waxaan ku yiri walaalo gabadhi gurigeeda la duminayay baan ahay arrintaydoo tafatiran buu hayay wuxuu yiri gurigaagana waan ogahay waa la ii sheegay qofka tayna waan ku garanayaa anigu waxba kama qaban karo maxaan ku dhahay gurigaaga iyo arrimahaaga wuxuu yiri anigu nin ma yihi engineer ma yihi hawlahani waxa weeyaan waa siday wax lagu sheegay wax u dhaceen waxba kama bedeli karo waxaan ku yiri in adeer Somaliland geed baa xaq helay oo dawga hareerihiisa la mariyay laga leexiyay waxaan ka hadlaynaa geed ma ahe waa guriga waxaad ii sheegtaa xaq uu geed helay ee gurigayga heli waayay inanka intaas oo ka xanaaqay furku tuuray oo baxay sidii baanu isku ogeyn guriga la iigu yimi anigoo raba inaan maalinta hadlo waxa la iigu yiri hadlin waxa maqan bada saafkii gobolka bada saafka sug bada saafkii baan sugayay sidoo kalena waxaan la hadlay maxaan ku dhahdaa inamaan la hadlayo waxa la ii ballamiyay ninka hawlaha guud ba haysta ayaa la ii ballamiyay Elada Cabdilaahi Abakar kiibaan maxaan ku dhahaa ballantiisa la iigu maqnaa anigu dalka rasidan kuma ihi marti baan ku hay tigir baan soo goostay mar walba tigir baan beddelanayo dib u dhigayo nimankan inta daba soconayo de 2 bilood iyo maalmaha la ila meereysanay iyadoo sidaa tahay oo maaragtay aan sugayo maxaan ku dhahdaa inaan baro saabkii gobolka sugana aan dadkii ka ogolaaday aan minka inaa bakorna maxaan ku dhahdaa aan ballantaas in la iga soo sameeyo ka ogolaaday ayaa shalay waxa lagu ku soo waabaristay aqalkayga carfiidad la galiyay horta dad baa waxay leeyihiin guriyo badan baa la dumiyay guriyo badan lama dumin gurigayga la dumiyay shalay guriga halkan ku yaala abtigay baa leh faami baan nahay inaan kan gurigiisa shalay isagana carfiidada la galiyay faami baan nahay marka gurigaygu horta koow buu noqday in shalay la dumiyo